Waxa Zelensky hadda uu awoodo waa inuu soo baxo cabaado ama inuu gargaar dalbado. Waxay u muuqataa in uu ku hadaaqayo waxaan ku dhaaranayaa wax kastoo xurmo leh, wax xiriir ah lama lihin weerarkii Kurkos. Waa macquul ninku in uu run sheegayo, waana suurtagal in uu been sheegayo, laakiin beentiisa iyo runtiisa waxba sooma kordhinayso hadda. Sidaas waxaa leh madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin kadib weerarkii Kurkos. Putin wuxuu aaminsan yahay in Daacish ay tahay aalad la adeegsado. Waxa weerarka fuliyeyna ay Ukraine tahay, isku dubaridka iyo qorshahana ay lahaayeen reer galbeedka. Midda xigta hadda ee muhiimadda lehna waxay tahay in argoosiga Putin ee la sugayay uu durbaba bilowday, waana taas ciidamada Ruushka ay durbaba Ukraine ku bilaabeen duqeymo cir, dhul iyo bad leh, taasoo reer galbeedku ku qasabtay in ay madaxa gacanta saartaan. Kadib weerarka argoosiga ah ee Putin bilaabay, cidda ugu horreysa ee soo qaylisay waa Poland oo deris la ah Ukraine. Warsaw waxay sheegtay in diyaaradaha dagaalka Ruushka ay ku soo xadgudbeen hawadeeda, iyadoona kor u qaaday xaaladaha digniinta. Dhinaca kale, gantaalada Putin iyo diyaaradihiisa dagaalka ayaa dukum daakum ka dhigay caasimadda Kiev iyo magaalooyinka kale ee waaweyn, taasoo aan horay u dhicin tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka. Gantaalada kuruuska ah ee laga soo rido diyaaradaha fuliya duqeymaha istiraatiijiga ee 295 iyo sidoo kale gantaalada guuxooda ka dheereeya ayaa saacadihii lasoo dhaafay sidii roobka oo kale ugu daadanayay dhismooyinka warshadaha hubka iyo xarumaha istiraatiijiga ah ee ku yaala Kiev iyo magaalooyinka kale. Duqeyntan xooggan waxay xarumaha militariga Ukraine u bedeleen raad oo keliya, laakiin Putin intaas miyuu ku ekaan doonaa? Dabcan waa maya. Ukraine iyo reer galbeedku si fiican ayay ugu dharagsan yihiin in Putin uusan intaas ku joogsan doonin. Xitaa warbixinadooda sirdoonka ayaa durbaba kashifay in qorshayaasha argoosiga Putin uusan intaas ku ekaan doonin. Kadib weerarkii Kurkos, khudbad uu jeediyey, Putin wuxuu uu isku xiray in weerarka rugta ganacsiga uu xiriir la leeyahay dagaalka Ukraine. Qaysarka Ruushka maamula dhawaana marka loo doortay in uu sii hogaamiyo, wax muhiimad ah ma siinayo hadda in Daacishta fadhigeedu yahay Khuraasaan ay si madax banaan weerarkaas u fulisay, laakiin waxa uu caalamka oo dhan u sheegay in 4 ruux ee ciidamadiisa amnigu qabteen fuliyeyna weerarkii Kurkos ay doonayeen in ay u baxsadaan dhinaca Ukraine. Putin wuxuu kaloo sheegay in hogaamiyaha kooxda weerarka fulisay uu horay uga tirsanaan jiray militariga Ukraine, taasoo xaqiijinaysa in argoosiga Moscow uusan intaas ku ekaan doonin balse uu kasii ballaaran doono. Sidoo kale, sida ay xaaladdu ahayd ka hor weerarka rugta ganacsiga Moscow, hadda ma sii ahaan doonto oo wax badan ayaa isbedeli doona, gaar ahaan xilli Ukraine ay ka dhawaajisay in Ruushku uu hadda diyaarinayo ilaa 100,000 oo askari si uu weerar xooggan dhowaan ugu qaado magaalooyinka muhiimka ah ee Ukraine. Sidoo kale, Kiev waxay sheegtay in ilaa 500,000 askari ay dhabarka dambe ka ilaalin doonaan 100,000 ee askari, doorkoodana uu noqon doono inay gadaal ka taageeraan kahor inta aan doorkooda la gaarin, si ay u jiiraan magaalooyinka iyo goobaha istiraatiijiga ah ee ku yaala gudaha Ukraine. Sidoo kale, wasiirka gaashaandhigga Ruushka ayaa dhowaan sheegay in ciidamadooda ka dagaalamaya Ukraine ay ku xoojin doonaan 2 guuto cusub oo ciidan ah, taasoo durbaba reer galbeedka ay ku macneeyeen in Putin ay ka go'an tahay in uu qaado tallaabo adag oo uu ku argoosanayo. Falanqeeyaasha ayaa iyagana weerarka Kurkos u arka mid Putin faa'iido u horseedi doona si uu u xalaaleysto ama sharciyad uga helo in uu wada qabsado Ukraine. Putin wuxuu kaloo ku dhawaaqay in dalkiisa uu hadda ku jiro xaalad dagaal, halka markii hore duulaanka Ukraine uu ku sifayn jiray howlgal militari oo qaas ah, taasoo la micno ah in Putin uusan ku ekaan doonin gobolka Donbass iyo jasiiradda Crimea oo uu horay u qabsaday dhulkiisana ku darsaday. Xitaa shacabka iyo siyaasiyiinta gudaha Ruushka ayaa markaan ku qanacsan in Putin uu ku dadaalayo in uu maalgashi xooggan ku sameeyo duulaankiisa Ukraine si uu u xaqiijiyo danihiisa siyaasadeed iyo militari ee ku wajahan dagaalka Ukraine. Xitaa haddii Kiev ay ku caddaato in ay ka dambeysay weerarkii Kurkos iyo haddii kaleba. Sidoo kale, Kiev way og tahay waxa sugaya iyo in Putin hadda gacantiisa ay soo gashay wax uu ugu mamarsiyoodo inuu laba jibaaro duulaanka uu ku hayo. Mas-uuliyiinta silsile ee Kiev qaarkood ayaaba saraakiisha sirdoonka Ruushka ku eedeeyey in ay iyaga soo maleegeen weerarkii rugta ganacsiga Moscow si ay marmarsiyo ugu helaan in ay laba jibaaraan dagaalka ay hadda ku hayaan Ukraine. Adiga maxay kula tahay? Ukraine iyo reer galbeedka miyaa ka dambeeyey weerarka Kurkos, mise sirdoonka Ruushka si Moscow ay marmarsiyo ugu hesho in ay laba jibaarto dagaalka ay ku hayso Kiev? Aragtidiina nagu soo hagaajiya qaybta commentiga. Mahadsanidin.